habeen wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasta oo joogtaan halkan waa telefishinka madaxa banaan ee Bulsha TV xaruntiisa magaalada Hargeysa markan daawadayaal waxa la soo kaaray hadii aan idin soo gudbin jirnay war aan idin ka helnay dalka iyo dibadda qodobada caawa warkeena ugu door corona waxa kamid ah madaxweynaha Somaliland iyo wafdi uu hogaaminayo oo socdaal kadis ah ugu baxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya Oqaashi ugu tirada badneed ee ka soo jeeda gobolka Maroodijeex oo si weyn u soo dhaweeyay ka qaybgalka shirka magaalada London xarunta faafinta islaamka oo deeq quraasi ah ku wareejisay xarunta agoomaha ee magaalada Hargeysa Sultan Abdurrahman Awaale Hurre oo kamid ah madax dhaqameedka Somaliland ayaa qaadacay isla markaana waxa laga xumaada ku tilmaamay in laga qayb galo shirka magaalada London uga furmaya kooxaha isku haya dalka Soomaaliya taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Boorame ayaa ka hadlay dilal habeenadii ugu dambeeyay ka dhacayay magaaladaasi kuwaasi daawadiil waa qodobada caawa warkeena ugu door corona haatana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo fidsan madaxweynaha Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo iyo wafdi uu hogaaminayo isla markaana ay xubno ka hayeen wasiirada arrimaha dibadda arrimaha gudaha iyo waliba madaxtooyada ayaa socdaal kadis ah ugu baxay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya faafaynta warka waxa inoo haya wariye Cabdiraxmaan Xirsi Kaahin Ilkaase madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa maanta safar shaqo ah oo muddo 2 cisho qaadanaya ku tagay dalka aynu jeerka nahay ee Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland intaanu ka dhoofin gegada caalamiga ah Cigaal International Airport waxa uu sharaf kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu wafdigaasi uu hogaaminayo uu ka koobnaa wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Somaliland wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland iyo wasiirka madaxtooyada iyo waliba marwada koowaad ee dalka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland intaanu ka dhoofin madaarka waxa uu warbaahinta uga waramay safarkiisa shaqo ee uu ku tagayo ugu kicitamayo Itoobiya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland isagoo oo ka hadlaya arintaasi uu safarka shaqo ugu tagayo dalka Itoobiyana waxa uu yiri insha Allah ta'ala waxaan ugu soconaa waa sida caadiga ah Itoobiya waa dal aynu saaxiibnahay shaarnahay wax badan laga dhaxayaan kulli markii muddo la joogo dhaqan iyo diin oo hadeen hadii goorane arrimaha mantaqada ka socda isaga warramo oo ay markaana wixii wartashi danaha quseeya labada dal aan ka wada sababta ugu socda waa sida weeye Itoobiya wax badan meesha ku jira ma jiraan insha Allah ta'ala waana sida caadiga ahayd aan wax danta labada dal ku jirto aan ka wada hadlno Oqaashi ugu tirada badneed ee gobolka Maroodijeex ayaa si weyn u soo dhaweeyay ka qaybgalka shirka magaalada London uga qabsoomaya kooxaha kaas oo lagu soo marti qaaday Somaliland faafaynta warka waxa inoo haya wariye Cabdiraxmaan Isbatoore wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Somaliland Cismaan Maxamuud Garaad Soofi ayaa maanta ka qayb galay kulan ballaaran oo isku yimaadeen caaqilada 5 degmo ee caasimadda Somaliland ee Hargeysa iyo degmooyinka hoos yimaada kulankaasi oo lagu taageerayay shirka London ee dhawaan ka qabsoomi doona dalka Ingiriiska oo ka qayb galaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa waxa ka soo qayb galay barasaabka gobolka Maroodijeex agaasimaha xiriirka golayaasha qaranka Bashiir Cabdi Xariir iyo barasaabka xigeenka gobolka Maroodijeex iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan xukuumadda Somaliland kulankan oo ay ka soo qayb galeen in ka badan 200 oo caaqil iyo salaadiin ah oo ka tirsan salaadiinta Somaliland ayaa waxa ay sheegeen inay taageersan yihiin go'aan
go'aanka madaxweynuhu qaatay ee ah in laga qayb galo shirka ka dhici doona dhowaan dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London ee laga hadlayo arrimaha Soomaalida. ugu horreynna halkaasi waxaa ka hadlay barastab ku-xigeenka gobolka Maroodijeex iyo barastabka gobolka Maroodijeex Maxamed Cabdilaahi Xamarji waxaanay tilmaameen sida loogu baahan yahay in la taageero go'aanka uu qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyaga oo hoos ka xariiqay in kulankaasi yahay mid qarannimada iyo goonisutaaga Soomaaliland aan waxba yeelaynin oo beesha caalamka laga dhaadhicinayo goonisutaaga Soomaaliland yahayna shir caalami oo ka soo qayb galayaan in ka badan 40 dawladood. dhinaca kale halkaas waxaa ka hadlay agaasimaha xiriirka golayaasha qaranka Bashiir Cabdi Xariir waxaana uu ku nuxnuxsaday inuu shirka London yahay mid Soomaaliland qarannimadeeda si xoojinaya ee aan ahayn mid wax u dhimay qarannimada Soomaaliland. waxa uu salaadiintii uqaashi iyo madax dhaqameedada halkaasi ka soo qayb galay u sheegay inay yihiin dadkii buddiga qarannimada iyo goonisutaaga Soomaaliland markastana aan laga marmaynin go'aankooduna yahay buu yiri mid ay xukuumaddu markastaba qaadanayso. dhanka kale halkaasi waxaa ka hadlay qaar ka mid ah caaqiladii ka soo qayb galay shirkaasi iyaga oo si weyn u taageeray in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xukuumadduba ay ka qayb gasho shirka dhawaan ka dhici doona dalka Ingiriiska gaar ahaan magaalada London. gabagabadii halkaas waxaa ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cismaan Maxamuud Garaasofe waxaana uu sheegay in shirkaas London ee xukuumaddu ka qayb galayso uu yahay mid aan ka hor imaanayn dastuurka Soomaaliland isagoo sheegay in Soomaaliland hore u goosatay inay gooni u taagnaato oo aan marnaba aan la midoobin Soomaaliya. waxa uu sheegay in Soomaaliland halkaasi ay ka cadeynayso qarannimadeeda iyo goonisutaageedaba. taliyaha saldhigga dhexe ee magaalada Boorame ayaa ka hadlay dilal habeenadii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Boorame kaas oo ku tilmaamay in ay ku raad joogaan isla markaana ay gacanta si aad ugu qaban doonaan cid kasta oo geysata dilalkaasi. faafaynta warka waxaynu hayay wariye Cabdiraab Fataax Axmed oo aalaaba nooga soo warama magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. taliyaha saldhigga dhexe ee magaaladan Boorama Maxamuud Yuusuf Cige Raran ayaa maanta waxa uu shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaaladan Boorama wuxuuna shirkiisan jaraa'id taliyahan kaga waramay xaaladda amni ee magaaladan Boorama. Maxamuud Yuusuf Cige Raran waxa ugu horeen uu ka hadlay dilal habeenadii la soo dhaafay ka dhacay gudaha magaaladan Boorama. nin baa ku dhawaaqay nin uu abti u yahay oo markaa isaga xiskiisu xogaa u dhinaayay kaas oo uu xidhan yahay ku kala wax jiray halkan qoorgaab lagu dilay isaga baaristiisa aan ku guda jirno xogaa dad ku tuunsanahay aan soo xidhay. taliyaha saldhigga dhexe magaaladan Boorama waxa kale uu hoosta ka xariiqay inay yaraadeen muddooyinkii ugu dambeeyay rabshadihii dhalinyarada ay ka sameey jireen gudaha magaaladan Boorama kuwaasoo kooxo ugu dagaalamay jiray gudaha Boorama. magaalada degmadu aad iyo aad bay u wanaagsan tahay wax dhibaato oo hadda jirtaan ma jirto. kulay waxyaalaha noogu dhibadnaa ciyaalkii kooxaha ahaayeen muddooyinka dambe iyaga laftoodu sidii hore maaha. sharcigan horgeeyay kooxdooda dhawid magaalada ku dagaalantay waa la xukumay sanad waa lagu xukumay kadib dhalinyaradii markaa dib ayay u joogsatay markay aragtay sharciga in la horgeynayo. Suldaan Cabdiraxmaan Cawaale Hurre oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland ayaa ka soo horjeesaday in ay Soomaaliland meel la soo fadhiisato kooxaha isku haya dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya. suldaanku waxa uu xaraan ku tilmaamay in laga qayb galo shirka magaalada London uga qabsoomaya kooxaha isku haya gaalku-haynta dalka Soomaaliya isla markaana lagu soo marti qaaday Soomaaliland. faafaynta warka waxaynu Cabdiraxmaan Isbatoore. suldaan Cabdiraxmaan Cawaale Hurre Duudo oo ka mid ah salaadiinta Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan salaadiinta gobolka Maroodijeex ayaa maanta mar uu waramayay telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV waxa uu sheegay in shirka dhawaan ka dhici doona dalka London uu yahay mid qarannimada iyo goonisutaaga Soomaaliland ka soo horjeeda. waxa uu sheegay in kastoo ay go'aansadeen buu yiri golayaasha qaranka iyo dhammaan shacbiga Soomaaliland in shirkaasi laga qayb galo balse uu shirkaasi uu salug weyn ka muujiyay suldaanku. suldaan Cabdiraxmaan Cawaale Hurre waxa uu sheegay in Soomaaliland
hore u goosatay goonusutaaga iyo qarannimadeeduna tahay mid muqadas ah oo aan mar laban laga noqon doonin waxaana uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo u soo jeediyay inuu ilaaliyo shuruucda dalka iyo qarannimada Soomaaliland oo la iska ilaaliyo buu yiri waxyaabaha wax u dhimaya qarannimada Soomaaliland Suldaan Cabdiraxmaan Cawaale Hurre Dudo oo kamid ah salaadinta waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay in markasta loo baahan yahay in laga hadlo wixii qaranka iyo goonusutaaga Soomaaliland ba waxyeelaya isagoo amuurtaasi ka hadlayna waxa uu yiri shirkaasu wuxuu khatar ku yahay jiritaanka Soomaaliland waa ku khatar wax itiraaf oo uga imanaya ma jiro wax waxtaro oo ay ku farxaan oo uga imanaya ma jiro waa si loo codeeyo imika waa la tagaya ka tigitaanka la tagay la go'aansadayna waa meel lagu diidaa ma jirto laakiin waxa adkaa doonta in uu coday karta tigitaan waxa adkaa doonta ilay waa la wada og yahay waxa ku saabsan waxa adkaa doonta xukuumaddu haday tagto soo noqoshadeeda ay nagu adkaa doonto soo noqoshadeeda codeynteeda ayaa iyaduna noqon doonta mid adag oo cid u coday doonin taa waxaan leeyahay waynu ognahay halka waxa ka soo fool leh awrgaala uu iska arkaya magagamaysa Soomaaliya kuma hamaada Soomaaliland way og tahay shacbigeeda og dareenkeedu taagan yahay waxba ma yeeli doonto insha Allah laakiin waxa loo baahan yahay shacbigu inay feejiga gaar yeeshaan xeer baa loo coday kara qodob baa loo coday kara laakiin dalka looma coday karo maktabad loogu magac daray Sheekh Saalax bin Cabdulcasiis Al Sacuud ayaa maanta laga furay magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal maktabadan oo ay ridaha u fureen culimada diinka magaalada Boorama ayaa waxa faafaynta warkan uga soo diray wariye Cabdifataax Axmed qaar ka mid ah culimada diinka waaweyn ee magaaladan Boorama ayaa maanta waxay xariga ka jareen maktabad kitaabta diiniga laga heli doono oo loogu magac daray Sheekh Saalax bin Cabdulcasiis Al Sacuudi waxaana munaasabadii maktabadan xariga loogu jaray ka qayb galay qaar ka mid ah culimada diinka gobolkan Awdal waxaana ugu horeen ka hadlay Sheekh Xasan Qayre oo ah maamulaha maktabadan loogu magac daray Sheekh Saalax bin Cabdulcasiis Al Sacuudi waxaana ka waramay maktabadan maanta ay fureen ardaydu waxay u baahan yihiin wax ay ula noqdaan tababartaan sida qaabka wax loo baaro qaabka wax loo akhriyo sida kutubta wax looga soo baxo sida iyaga laftoodu ay wax u qori karaan ama ay cilmigoodii ay waxa weeyaan muxuu ahaa ay ugu tababaran karaan ay mawduuc u qori karaan ama baxthi ay u sameyn karaan magaaladeennuna aad iyo aad bay ugu baahan tahay way jireen maktabada horay loo furay laakiin haddana waxaad moodaysay maktabada shaamilaho aad u waaweyn runtii ilaa imika way yaryihiin waxaana ku niyad aan ku haynaa insha Allah taala aan rajaynayaa fi mustaqbal ilaahay inuu suurtageliyo in aan samayno akbar maktabatin insha Allah taala fi Soomaal bal في شرق افريقيا مكتبه ugu weyn inaan insha Allah taala sameeyno sidoo kale sheekul beledka magaalada Boorama Sheekh Cabdilaahi Sheekh Ali Jawhar iyo Sheekh Xasan Dahaye oo iyaguna madashan ka hadlay ayaa waxa ay ku baaqeen in lagu dadaalo sidii loo horumarin lahaa maktabadan laga heli doono kitaabta diiniga ah marka alxamdulillah bacaalmin maktabadani qiimay macadka u yeeraysa ardayda kaas oo yaa ku baalacanaysa kutubta dadka daalin cilmiga waxaan ku tirtirsanaynaa fursad weyn inay ka faa'iideystaan oo ah intii suuqa ay joogi lahaayeen in ay yimaadaan maktabka ay yimaadaan waxaan insha Allah taala ku dadaali doonaa maktabada bal si aan ugu heli lahayn kaalmo ama gudaheena ha noqoto ama khaarijka ha noqoto ama dadka muxsiniinta aba ay ha noqoto maktabadan maanta la bilaabay waxaan rajaynaynaa insha Allah taala sida Sheekh Xasan oo ka dhawaaqay in qofkii hal kitaab ku soo tabarucaya naasooyinaya ama kutubtiisa ka soo qaadaya inuu ku soo darsado si kastaba haatee maktabadan Sheekh Saalax bin Cabdulcasiis Al Sacuudi ee maanta laga furay gudaha magaaladan Boorama waxa ay noqon doontaa maktabadii ugu horeysay oo nooceeda oo laga furay gudaha magaaladan Boorama waxaana aad u soo dhaweeyay qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gudaha magaaladan Boorama ee aad u jecel daalacashada kutubta diiniga ah Cabdifataax Axmed Bulsha TV magaalada Boorama xarunta cusbitaalka dhimirka ee magaalada Boorame ayaa gacan ka helay haweenka ku dhaqan magaalada Jidda ee gobolada Awdal iyo Salal wakan mar kale wariye Cabdifataax Axmed oo halkaasi
goobjoog ku ahaa isla markaana warkan nooga soo diray gudoomiyaha hay-adda dhismaha jidadka goboladan awdal iyo salal ee Azarda Professor Xasan Cali Cusmaan ayaa maanta waxa uu maamulka cusbitaalka guud ee magaaladan Boorama ku doosiyay deeq lacageed oo ay soo direen qaar kamid ah gabdhaha jaaliyada goboladan awdal iyo salal ee ku dhaqan magaalada Jiddah ee dalka Sacuudiga deeqdaasi oo dhameed $3780 waxay gabdhahaasi ugu talagaleen dhismaha cusbitaalka xanuunka dhimirka oo dhawaan laga bilaabi doono dhismihiisa gudaha cusbitaalka guud ee magaaladan Boorama munaasabadan waxaa ka hadlay gudoomiyaha hay-adda Azarda Professor Xasan Cali Cusmaan waxa uu falanqeeyay deeqdan lacageed isagoo sheegay in deeqdan lacageed soo aruuriyeen gabdhaha jaaliyada gobolka Awdal ee ku dhaqan magaalada Jiddah ee dalka Sacuudiga waxa kale oo munaasabadan ka hadlay agaasimaha cusbitaalka guud ee magaaladan Boorama Dr. Ismaaciil Xaaji Maxamed Aye waxa uu ugu mahadnaqay haweenkaasi ka soo jeeda goboladan Awdal iyo Salal ee ku dhaqan magaalada Jiddah ee lacagtan ugu soo deeqay dhismaha cusbitaalka xanuunka dhimirka ee dhawaan dhismihiisa ka bilaabmi doona gudaha cusbitaalka guud ee magaaladan Boorama dhanka kale gudoomiyaha hay-adda Azarda Professor Xasan Cali Cusmaan waxa kale oo uu deeq lacageed gudoonsiyay wiil yar oo dhawaan aynu ka baahinay TV-gan kaasi oo qaar kamid ah jirkiisa ay ka abuurmeen xayawaano kaasoo imika lagu dabiibayo gudaha cusbitaalka guud ee magaaladan Boorama deeqdan waxa ay dhameed $400 Mareykanka waxa uu gudoomiyaha hay-adda Azarda ka soo qaaday qaar kamid ah gabdhaha reer Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Tehran ee dalka Sacuudiga kuwaasoo ugu soo deeqay wiilkan yar ee ku xanuunsanaya gudaha magaaladan Boorama gudoonsino deeq lacageed oo $400 oo ka timid gabdho muxsiniina oo reer Soomaaliland oo degan bariga dalka Sacuudiga ee magaalada ku taalo Tehran la yiraahdo gabdhahaas oo lacagta u soo tabarucay wiilka xanuunsanaya ee sahal say muxuu dhibaatadiisa wax uga qabtaan u soo tabarucay $400 waxaan ugu dhiibayaa runtii ururka tawfiiq oo hadiya jeer muxuu macaawinka loo soo mariyo ayaan ugu dhiibay muxuu lacagtaasi iga gudoomo Adi Fatah Ahmed Bulsha TV magaalada Boorama markaanu caalamka idinka haynana daawadeel waxa kamid ah madaxweynaha uu dalkiisu ka soo doogayo dagaal 20 jirsaday ee dalka Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta booqday suuqa bacadlaha ee magaalada Muqdisho faafaynta warkan waxa inoo soo diray wariye Saciid Doore madaxweynaha Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta socdaal ku tagay dhismaha bacadlihii hore ee degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho madaxweyne Sheekh Shariif ayaa indhayn ku sameeyay dhismaha bacadlaha isagoo halkaas kula kulmay odayaasha dhaqanka Beelaahawiye iyo qaar ka tirsan dadkii gacanta ku hayay dhismaha iyadoona halkaas madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu shahaado sharaf ku gudoonsiyay dadkii dhismaha laga wareejiyay marka hore waxaan rabaa inaan aad iyo aad u mahad celiyo beesha reer xaaji go'aanka sharafta leh wadaniyada leh geesinimada leh ay qaateen iyo sida hantidii ay xafideen wanaagga iyo sharafka iyo nabadda ay ugu wareejiyeen inaan aad iyo aad u mahad celiyo runtii weligay rajadaydu reer xaaji waa ku weyneed sidaana waa filayay marka waa mahadsantihiin aan leeyahay Cusmaan iyo saaxiibadiisna si mataqaana gaar aan rabaa inaan ugu mahad celiyo arrintan waa arrin runtii muujinaysa bisayl dawladnimo waa arrin muujinaysa isbedel weyn inuu ka jiro Soomaaliya isbedel weyn inuu ka jiro magaalada Muqdisho dadku inay diyaar u yihiin dawladnimadii iyo hore in loo socdo maalmihii ugu dambeeyay ayaa dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya waxay waday dadaalo dadka degan guryaha danta guud ah looga saarayo Saciid Cabdiraxmaan Bulsha TV magaalada Muqdisho wadamada reer galbeedka ayaa isoo bahaystay sidii ay u joojin lahaayeen hubka nuclearka ee ay samaysanayso dalka Iran madaxweyne Barack Hussein Obama ayaa sheegay in ay si diblomaasiyad ku jirto ay uga hor istaagi doonaan dalka Iran in uu samaysto wax nuclear ah waa kan wariye Maxamed Ciir oo Ahmed
ciidamada militariga dalka Iran ayaa tababare iyo dowlatus ka sameynaya sidii ay u diyaar garoobayaan sidii ay u difaaci lahaayeen barnaamijkooda nukliyeerka taasoo marba marka ka dambaysa cunaqabataymo iyo hanjabaad kaga imanayaan dhanka reer galbeedka. Israa'iil ayaa Mareykanka u cadeynaysa inay dagaal ku qaadayso Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iran hase ahaatee dowladda Mareykanka ayaa weli aaminsan in si diblomaasiya loo xaliyo sidoo sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Hussein Obama. Madaxweyne Obama ayaa sheegay in ciidamo iyo weerar lagu qaadayo bariga dhexe si loo baabiyo isla markaana raad ku yeelanayso Mareykanka taasoo qaaliyeynaysa shidaalka oo iyagana dhibaato ku keenaysa. wadamada reer Yurub ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay la ildarna isla markaana ay dad kor u dhaafaya 300 oo qof ay ku neef waayeen mawjado baraf ah. faafaynta warka waxaa inoo haya wariye Maxamed Shiciir aw Axmed. dowladda reer Yurub ayaa la baxaadagaysa barafkan xoog badan ee ka da'aya maalmahan ka soo keenay dhimasho 300 oo qof. dalka Ingiriiska ayaa garoonka diyaaradaha ee Heathrow Airport kala barjoojiyay duulimaadyadii diyaaradaha kadib markii ay hoos u dhaceen heerka kulaylku guud ahaanba dalka Ingiriiska ka soo keenay darawalada gaadiidka oo xalay ay ku dhameystaan wadooyinka. dalka Talyaanigana waxaa kor u kacay dhimashada taasoo 7 qof ay u dhinteen qabow awgii iyadoo boqolaal qof oo kalena ay u hoydeen xalay tareenada. waxaa joogsaday isku socodka gaadiidka gaar ahaan caasimada Roma. dalka Ukraine waxaa cagacagaynaya dadka ku naf waayay qabowga 130 ruux halka 2000 oo qofna loo qaaday cisbitaalka. warki oo daawadayaal aad kala socoteen telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV waa naga intaas intaaynu warkan mid lamida ku kulmi doono waa anigu Najaadan Hunaye iyo dhamaanba akhyaarta telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV oo idinka tagtay sidaas iyo nabadgelyo.